inta badan hotel Villa Rose markay dadku maqlaan faham badan kama haystaan meesha uu ku yaalo waxa uu ku yaalaa dhinaca aaga tiyaatarka qaranka gaar ahaan waxa uu xigaa xagga degmada Boondheer oo kamid ah 17 degmo ee gobolka Banaadir madaxtooyadana kaabiga ayuu ku hayaa aad bay u adag tahay shacab Soomaaliyeed inay si sahlan ku soo galaan halkan maadaama uu ku dhex yaalo dhinacii madaxtooyada xarumo dawladeed oo fara badan oo aad loo ilaaliyana halkan ay ku taalo si aadana amaankeeda markii loo fiiriyo aad baa loo adkeenayo way adkeed mararka qaar si sahlan inay shacabka halkan ugu soo gudbaan marka laga reebo siyaasiyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo inta badan waqtigooda ku qaata halkan xalay mehe habeenkii ka horeeyay ayaa halkan lagu soo qaaday weerar ku bilowday gaari qarax laga soo buuxiyay waxa uu ku qarxay afka hore ee hotelka laga soo galo ee Villa Rose iyadoona markii dambe wararka qaar aan helna ay sheegayeen inay gudaha u galeen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo gaarayay 6 qofood waxaan rabnaa inaan gudaha u galno si aan u soo eegno waxa gudaha ka dhacay hadda waxaan imaaday gudaha hotelka Villa Rose aad bay u adag tahay warbaahinta in loo soo gudbiyo halkan laakiin anaga xiriir dheer oo aan sameynay kadib gudaha ayaan soo galnay oo waxaan marka hore fiirin doonaa qaabkii halkan uu dagaalku ugu dhacay oo ugu dagaalameen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala gedisan burbur xoogan ayaa hotelka ka muuqda halkan waa barxadda inta badan dadku ay fadhiisan jireen waqtigana ku qaadan jireen waxaana halkan u badan dad inta badan u shaqeeya dawladda federaalka Soomaaliya waxaan eegi doonaa gudaha muuqaalo yar oo burburka ku aadanna halkan ayaa idinku soo gudbin doonaa iyo qaabka weerarka shalay ay u soo afjareen ciidamada dawladda ka tirsan marka laga hadlayo hotel Villa Rose waxa laga soo galaa dhinaca tiyaatarka ama 15 May afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo shalay shir jiraad ku qabtay markii weerarka la soo afjaray kadib wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay intuu weerarka hotelka ka socday in ciidamada amniga qaybahooda kala gedisan ay soo badbaadiyeen ku dhawaad 60 qofood oo shacab ah sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo la soo badbaadiyay waa ay ku jireen waxaana ku dhaawacmay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhaawac fudud sida wararka qaar aan ku helinay ay sheegayeen uu ka soo gaaray halkan 8 qofood oo dad shacab ah ayaa weerarka intuu socday ku dhimatay laakiin xogo kale aan helnayna waxay sheegayeen inay jireen dad kale oo shacab ah oo ku dhaawacmay laakiin afyeenka hadalkiisa kuma cadeynin midaasi 5 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay hal askarina waa ku dhintay sida hore afyeenka uu shaaciyayba hotelka markii aad fiiriso hadda waxa ku sugan ciidamada amniga qaybahooda kala gedisan iyagoo wali xaqiijinaya gudaha ammaanka hotelka oo waxay sheegeen in ay jiraan miinooyin in babaanooyin yaala halkan iyadoona hadda miinada u dambeysay ciidamada amniga gaar ahaan kuwa dambi baarista CID ay halkan ku qarxiyeen wali shaki kale ayaa hotelka ka jira mas'uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gobolka Banaadir sida warta nabadda iyo Boondheere ayaa hotelka banaankiisa ku sugan iyo sidoo kale kooxda nadaafadda loogu talagalay si halkan ay u hagaajiyaan marka hotelka gudihiisa loo xaqiijiyo maadaama gudaha hotelka ay saacado badan ku wada dagaalamayeen kooxay ka tirsanaa al-shabaab iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka haddana weerarkii shalay waqti dambe ayaa la soo afjaray xilliga tan waxa gudaha ku jira ciidamada dambi baarista CID-da kuwaas oo haya baaritaano ay sheegeen inay baarayaan miinooyin iyo bambaanooyin goobta lagu dagaalamayay ay yaalaan gawaaridan idin muuqda waa kuwa lagu baakimay banaanka hotelka burbur xoogan ayaa soo gaaray gawaarida iyo sidoo kale guryaha ku yaala hareeraha hotelka ولينا لو ما أقولان إن ضدك يجودها أوصل قلان هوتيلك أنت لقى حق يجينا يا أمانك هوتيلك صوبت أي عيد ما دقوق يحين إن قطر أمني أي جري كرتو حالي هوتيلك وحاسو قاري مركي ويرك ولما كدب تليا عيدنك حوق الدلك كسماء تليا عيدنك بوليسك الصوماليات أهنا تليا حيجينك عيدنك تليا قيبت جود بوليسك قبل كبنادر تليا أنا بسويد قبل كبنادر يسركلك لو كتر سندولة ده نوما أيسن سورة جلين إن مقالة ضد إيدي سوق بينه محايا لي لما أقولين إن جودها هوتيلك ورباهنته أي أسر طلبان دال دير وأن بحيق إيدي إيما سورة جلين بل سوى حي إيش يجين إن قطر jirta awgeed warbaahinta aan loo ogolaan karin inay gudaha u soo talaabaan iyo goobta ay wax ka dhaceenba
xitaa saakay warbaahintu looma ogoleen ilaa ammaanka goobta ay wax ka dhaceen laga xaqiijiyo isku day aan sameynay kadib muuqaaladan yar ee aan idiin soo gudbinay ayaa si dhib ah inoogu suura gashay inaan idiin soo gudbino qaabkay wax uga dhaceen goobtii weerarka ay ku soo qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab oo mas'uuliyadda weerarka hotelka Villa Rose sheegtay. Faadumo Cabduqaadir, TV-ga Dalsan, Hotel Villa Rose, magaalada Muqdisho.